السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتي وسلامتي أصحابتا halkani waa channelka Darwish Channel oo alaab aad ka dhigtaan waxyaalaha tiknoolajiyada ku saabsan. Daawada hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelkeena Darwish Channel, fadlan noo taaba calaamada cas ee subscribe si aad uga mid noqoto qoyska Darwish Channel, waayo waa bilaash. Sidoo kalena ku dhufo calaamada gambaleelka digniinta si ay kuu soo gaaraan waxyaalaha aanu soo gelino bartayadan. Fiidiyoga like noo saar hadii uu ku cajibiyo. haddii ishaadu qabato cadceedda iyo qorraxda fallaadhaheeda oo soo baxay cida shimbiraha ee codadka kala duwan ku ciyaaya, waxaa hubanti oo hubaala in ay waaberi ama subax tahay. subaxda ama waaberiga hadba qofku si ayuu ku bilaabaa oo maalintiisu ay noqotaa. insha Allah halkan waxaan ku soo bandhigi doonaa 5 caado ama 5 shay oo haddii aad ku bilaabato subaxdaada iyo maalintaada ay noloshaadu isbedelayso. number 5, inaad marka u horeyso oo aad soo toosto inta aadan wax kala cunin aad koo biyo aad cabto, iyadoo ay iska fiican tahay in aad mar walba aad biyaha badsato. haddana biyaha aroorta hore waxay leeyihiin caafimaad aan la soo koobi karin. waxaa la dhahaa 70% jidhka bini'aadamku wuxuu ka kooban yahay biyo. sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaana in biyaha qofku uu badsado. biyuhu waxay fursad siinayaan quraacda oo jidhka oo diyaarsan baad quraacanaysaa. waxay jidhka ka saarayaan sunta iyo gaaska. sidoo kale waxay ku siinayaan firfircooni in aad maalintaada ku bilaabato. biyuhu waxay safeeyaan oo qashinka ka saaraan kaliyaha iyo kaadi mareenka. sidoo kale waxay bedel u noqdaan kaadida iyo dhididka qofka ka baxay. biyuhu waxay leeyihiin faa'iidooyin fara badan oo aynu halkan kusoo koobi karin. number 4, in aad ku quraacato cunto isku dheelitiran oo caafimaad ku jiro oo borotiin iyo fitamiin leh, taas oo ka saacidaysa ama ka caawinaysa nidaamka iyo kantaroolka sokorta jirkaaga iyo caafimaadka dheefshiidkaaga. number 3, in aad kacdo marka saacadda waqtiga aad ku xidhato ay soo dhacdo ama waqtiga aad doonayso inaad toosto oo aad hurdada ku laaban. waayo haddii aad toosto oo misna hurdada ku laabato, taasi waxay khalkhal u keenaysaa caafimaadkaaga iyo nidaamka hurdadaada. waxaad dareemaysaa qas iyo isku dhexyaac markaad ku laabato hurdada. sidaa daraaddeed waxaa fiican in aadan hurdada ku laaban sida markaad salaada subax u kacdo. number 2, waxaa fiican in aad isku dhigto cadceedda fallaadhaheeda markaad soo kacdo, waayo qorraxda ama cadceedda fallaadhaheedu waxay firfircooni siiyaan jidhka iyo caafimaad. weliba waxaa fiican haddii aad daaqada qolka ay cadceedda u jeedo in aad furatid marka aad soo kacdaba si qolka ay cadceeddu u soo gasho. number 1, in aad marka aad soo kacdo aad samayso jimicsi ama jirdhis ama calaamito. jirdhisku ama calaamitadu waxay jidhka siinaysaa firfircooni iyo caafimaad. laakiin haddii aadan jimicsan markaad soo kacdo, waxaad shaqada aadaysaa ama maalintaada ku bilaabanaysaa caajis iyo culays. halka marka aad samayso jimicsi calaamito aad dareemayso farxad oo urugtii iyo murugtii ku haysay aad ilaawasid. calaamitadu waxay sidoo kale caafimaad u leedahay wadnaha, xididada dhiigga iyo sanbabada. sidoo kale waxay leedahay faa'iidooyin fara badan oo aan halkan lagu soo koobi karin. daawade haddii aad halkan soo gaadhay oo aad dhamaysatay fiidiyowga, fadlan noo taabo barta cas ee subscribe-ta, like saar, sidoo kale sii share garee oo la sii wadaag asxaabtaada. mahadsanidin.